horjoogaha dhinaca qaraxyada u qaabilsanaa maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaan lagu soo bandhigay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Siraaji Sheekh Isaaq ayaa mar kale ka soo diray magaalada Baydhabo. Xuseen Salaad Mukhtaar oo maanta isu soo dhiibay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa muddo 7 sano uu ka barbar dagaalamayay maleeshiyaadka al-shabaab isagoo ka soo dagaalamay gobollo fara badan oo dalkeena Soomaaliya kamid ah sida Baay, Bakool, Gedo iyo Hiiraan. Ninkan oo awal kamid ah dagaalyahanada al-shabaab ayaa sanadadii dambe waxa al-shabaab u qaabilsanaa sameynta qaraxyada oo al-shabaab ay u yaqaaniin mutafajiraad waxaana uu ahaa taliye cunug oo al-shabaab ay u yaqaaniin Amirul Fasila. Xuseen Salaad Mukhtaar oo maanta ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ku soo bandhigeen xarunta qaybta booliska gobolka Baay ayaa ugu horreyn iga warbixiyay sababta ku kaliftay inuu ka soo baxo al-shabaab isla markaasina isu soo dhiibay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. dadka islaamka sheegada oo socdo oo la gooriyo oo tawfiiqsado oo mandidaas tangarayo kabadan ma wana mabdamis ama diintis ama hayna boona mustan hayna hanga jidka lagu tabo taa min ziyana araga markaas samay ba aan siday intaan ya gudaaje ama gudaan kan dhatiyo baa badbaadidii isku madlayta markaan intaasna alkaasan arag inta tiitay iwalaana abarid dhatiyo aneen ku badbaadsan intaasan aragala waxaa sidoo kale ii sheegay in 3 jeer uu ku dhaawacmay miino iyo qaraxyo uu diyaarinayay oo qaar ka mid ah saaxiibadiisa oo xilligaasi la diyaarinayeen ay ku dhinteen kan sameeyo wala sameeyo galanta kala jirto bal ka hasma ilaa ma jirto kan sameeyo sidoo kale ila ka tinafta ana suuba sidoo kale ka tinafta daawa ki diray farto wala ay diiran lan oo katabe lan kala oo katabe walgeyn anta lagu katabe la raaw toba garka la raayay tadin soo raayay tagawal meelaha jubooyinka sajay ahayd ay soo gaasay markaan helay baawr baawrande kaasay baawr dawladdu waa misaay Ethiopia yani kaasay kasi wala isoo bidan jarana oo qaraxay mar ciidamada Ethiopia naga aan dawladda naga la kaheen khasaaro ku adoorta khasaarada markaas lan kama kiirin khasaaro wala Ethiopia ka dhaw wala dadka ka dhaw dad manseeda soo gal lan shan wala jooyo bawida adoo ka hawkale tiri kordama wala ka keentar ko wana hayta ma jar marka miinooyinkiisa soo bi kartan aan gumudku مسمينين اللي جل بعرف كسر مرة مكاسة كاسة. رموت أيونو أفضل دكتور والله رونا كتاي أفضل موبايل نكتاي أيو نوت اللي كين إديكسد. حسين سلام مختار يا جبدي كعد صدي دولة الصومالية إن يعفس أفضل سو اسم مركز سنة وبلغ قاضي إنه الله شقين دون عيدا كحوج دولة الصومالية. أوكي إذا ما سنت مركز ما يكون أمس هذا الشباب وقتنا عن النادي سوري سلام. وقتنا ما يكون أمسنا تناطن وباهي لها هم وها دينك بعدين شيء ساعة. dad badan oo asxaabeedkiin oo al-shabaab ee qaarsho aan taliyaasi oo amiiran hay'adda kulliyaha jafta ka garan oo al-shabaab ee meenka baaqlay anti oo ma waxaan adduunkan islaamku dhexdiisa ka galada ku toobashanano dawladda islaamka afisku weydiisada islaamka kale shacabkana ku weydiisada dawladda Soomaaliyeed iyo ciidanka xoog iyo dalka dhato anti ma waxaan ay dhawaano efis imusama ifyaan leeka ifyooleeka ka dhawaay Siraaji Sheekh Isaaq warbaahinta qaranka Soomaaliya Baydhabo.